Video Online TV. haddii la tilmaamo ceebna mid ceeb loo waayayaa ma jirto dad ceeb raadinaysana mid aan la odhan karin war markaa naga daa haddaad tidhaa waa kuwa islaamka maba caynkaa yeelaaneba waxaasaa la yidhi intaad dhowr shay isu soo ururiso waa bashar isu tegeyna adigaagan laftaadan wax naqdinaya cid kaleba markaad ka timaado bal noloshaadun yaro qiimeeyo yaro qiyaas cid kale ka kaalaya imise goor bay afkaartaadu isbedeshay labadii baalacadee u horreeyey markaad akhriday sibaad ahay laba ka dambeeyey markaad akhridayna sibaad ahay maantoo laba ka dambeeye aad akhridayna si kalaa tahay imise goor baad isbedeshay waa shaksiyadta keliya markaanad cid kala qiimaynin noloshu maaha shay jaamid oo meel iskaga rakiban oo aan dhaqdhaqaaqin ee isbeddelkani kollayba wuu ku dhaca waana la arkaa mid shalayto wixii uu fatwooday ama se u raacsan maalan sheekh cumar cabdiraxmaan sheekha indhaale ee jooga maraykanka ilaahay khayr ha siiye waxaa la yidhaahdaa siday majallat almukhtaar tilmaamayso cadadkeedii 11aad ee 87kii soo baxay wuxuu fatwooday in la galo baarlamaanada dukhuuli lbaarlamaan dadkina wuu ku dhiiriyey isagoo markaasi fii nadari isagu markuu xisaabiye u arkay in waxtar ka soo socdaan laakiin majallat almujtamac ee soo baxday 23kii bishii 9 wuxuu dib u fadwooday haddana inuu ra'yigii hore ka noqday bahalkan inaan waxba ka soo soconin waa markuu wax qiimeeyey inuu calaa kulli xaal tajribadiisii haddana waxay siisay mar dambe inuu ka noqdo uu yidhaahdo tajriba jihaadiya hala maray kan meesha tan waxba kama soo socdaane ha laga daayo calaa kulli xaal shalayna cayn ku lahaa maantana cayn ku leeyahy dee maxaynu masaakiinta maanta joogta ka sheegaynaa ijtihaadku si isu bedelo markuu duruufta iyo azminada iyo amkinadu isbedesho waxaa taqaaneen imaamu shaafici oo ciraaq deganaa inuu qowl qadiim iyo qowl jadiid kale leeyahay markuu ciraaq deganaana masaa'il inuu si u arkay masar markuu tegeyna 17 mas'alo si uu rumaysnaa inuu gediyo si kale uu fatwooday dabeetana madhabka shaaficiga la yidhaha qowl qadiim lishaafici oo waa ciraaq markuu joogay caynkaas u yidhi berigii dambe uu masar tegeyna saatan buu yidhi waxaan uga jeedaa marka duruufta lagu xisaabtamo wax badan baa isbedeliyo wadciga iyo awdaacda waxaan idinkula talin lahaa markaas inaydan tajribo qura isha saarin oo duruuf qura iyo wax gaara wadatay inay maskaxdiinu ballaadhato laba buug inaanay qafilin inaad isku daydaan bal waxa la qoriyo waxa la akhriyay iyo waxaba inaad iska wada akhrido walow ra'yigaa kuba waafiqina bal inaad la aragta hadda tajribadiisa inaad isku daydo tajaaribta xarakaat alislaamiya mareen oo dhan inaad wax ka ogaato wax ka akhridid kow waxaan isku dayayaa mawduuc waa mawduuc shaa'ika ahal lahu ma ihi malaa cidda waaniga idin maahmaaha idin idhi meel libax ka kacay ya marka waxaan isku dayayaa bal khawaatir inaan soo bandhigo khawaatir fikriya maaha khawaatir nafsiya bal markaan wax indheeyey ama isha la raacay caalam alislaamiya siduu u muuqdo waxyaabaha igu muuqata in laga istintaaji karo inaan soo bandhigo hadday sawaab tahayna xagga allay ka timi hadday khata tahayna dee marka horeba mujtahid ma ahayn ee waxaan idin tajaaribtii raggun baan isku dayayaa bal inaan soo bandhigo tajaaribtii rag ay fatwoodeen ee tajribeeyeen dabeetana intay ijtihaadeen dabeetana ay tajribeeyeen anigu midhihii ka dhashay ayuun baan doonaya inaan bal wax idinka tustusiyo midhayowgii ka soo baxay ijtihaadkii markii la dabaqay ee practical laga dhigay midhihii ka dhashay inaan wax ka eegano yacni inaynu midhaha wax ka cunno waa laynoo dadaalay oo la ijtihaaday waa laynoo sameeyey shabaab maanta bilaabmay baanu noo indhaa kala qaaday midhaha inaynaan iska xidhine bal inaan wax ka cunno wixii aan ka cuni karno sida daraaddeed waxaan leenahay waxyaabaha u baahan inaynu marka hore maskaxiyan ku hayno waxaa ka mid a yani anigoo waraaqahayga iska sitaan maktabadda soo maray dabeetana waxaan ka helayba kitaab ka yar oo uu qoray doctor cumar sulaymaan cabdalla alashqar muqadamadiisaaba aada ii cajab gelisay wuxuu tilmaamaya inuu suura inoo soo bandhigo ku saabsan maxaa sababay yani aragtiyahan kala gedisanay inay yimaadaan ama siyaabaha kale
waxyaabaha sababay waxa kamid ah buu leeyahay u baahan in dib loo sharxo ama si fiican aynu soo bandhigno as-suura taariikhiya التي وصل الإسلام بها إلى الحكم marka hore bal inaynu isxasuusino suuradii taariikhiga ahayd ee islaamku uu ku gaadhay xukunka yani dawlad islaam hore u dhalatay ahdigii nabiga kaleey salaatu wasalaam bay dhalatay dabeetana way soo socotay ilaa ay qarniga kan soo gaadhay iyadoo maray xoog badeydna jirto maray si yara liidatayna ay jirto ay kala nooc ahay suuradda taariikhiga ee dawladdan ay asliyan ku binowday waxay ahayd saynu wada naqaano allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatahu ilaahay isaga subxaana wa tacaala meesha uu dhigayo risaaladiisa ilaahay wuxuu u doortay oo xikmadda ilaahigii ku tagtay in nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo saaray jaziira alcarabiya oo ahayd markaasi meel aan labada quwadoode waaweyn ee dunida ka jiray aanay saytaro badan ku lahayn laba xoog ayaa dunida waagaa ka jiray oo ahaa xooggii bershiya eeraanta iyo bariga xukumi jirtay iyo xooggii romaniska oo ilaa iyo yurubta hoose ilaa iyo north africa ilaa iyo eshiyadan sokoo dhan xukumaysa labada xoog ee meesha ka jiray meel aan ahayn baa ilaahay u doortay oo maka ilaahay u doortay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka soo baxo ficlan maka ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku kawinay qaacidadiisii koowaad wuu isku dayey diinta inuu ku faafiyo maka waxaa joogay quraysh ayaa sultaan meesha ku lahayd laakiin ma ahayn sultaan munadamo sida kuwan duwalkee labadan dawladood ay lahaayeen ma ahayne waa qabiil yani maan baawarka meesha le iyagu leh isla markaana manzilo diiniya ku laho kacbada iyo waxaan ilaalinaya bay ahaayeen qabiilkaasi wuu cadaadiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu markii la cadaadiyey waxaynu naqaanaa inaan waxba la dagaalamin laakiin uu raadiyey meelo balay kawaadirtiisa qaybo ka mid ugu badbaadi karto dabeetana waxay saxaabadii markay u adkaysan waayeen aan dirirra yidhaahdeenoo nebigu dirirtii wuu u diiday sida aayaadkii qur-aan soo degayana la dhahaa kufu aydiikum waaqiimu salaa waa loo diiday dirirtii dhibaatadii markay ku badatayna isti'saal in lagu sameeyo dadkiina waa looga cabsaday dadka wixii markaasi aan helaynin qabiil yara difaaca ama aan magaciisa lagaga weecanaynin ama tumistu ku badatay waxaa loo ogolaaday inay hijroodaan wuxuu nebigu ku yidhi boqor caadilaa jire bal xaggiisa iska sii qabta kooxihii hore markaa way baxeen oo dhowr gooroo isxigtaa waxay u hijroodeen qaxoontay ka noqdeen xabashada saxaabada qayb ka midii markaasi qaxoontinimo waxay ugu tageen xabashida isagoo uu hogaaminayo jacfar ibn abi aalib nebiga calayhi salaatu wasalaam in adeerkii nebigu meesha dhibaatadeedii markay ku badatay wuxuu yaro raadiyey bal meel uu u tanafusi karo inuu helo waa kii taa'if u tegey reer taa'ifna waa kuwii soo eriyey dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu raadiyey meel uu qaacido ku samaysan karo bal inna islaamku ka soo bidhiiqi karo waxa dhacday saynu taariikhda ku wada naqaano labadii bayce ee uu la galay ansaartii soo xaj tagtay yacni fii zaman aljaahiliya waa la iska xaji jiray xaj jaahiliya ay ku sugantay niman ansaaroo iska soo xaj tegey oo islaamka uu bandhigay oo islaamay ayaa laba goor nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi dabeetana waxaynu naqaanaa inuu la galay nebigu bayc alcaqaba luula iyo bayc alcaqaba haaniya magaalada madiine la yidhaahdo sultad dawladeed oo ka talisaa ma jirto maka iyo madiini kala nooc bay ahaayeen duruuftooda siyaasiga markaynu qiimayno maki waxay ahaayeen meel qabiil quri sultadiisa leeyahy oo hadduu amro markaa qabiilku ama wuxuu doono uu ka samayn karo isagu ku amarku taagaleeyo madiinise may ahayn madiine waxaad moodaa quwooyin isjiidanaya oo isu dheeli tirmi karaa inay ka jireen laba qabiilo aws iyo khasraj la yidhahdo colaadi ka dhaxaysaa joogay yuhuud 3 qabiile baa joogtay dabeetana quwadka madiine yaalla way jajabnaayeen taasi waxay sababaysay qole magaalada saytaraysaa ma jirtee qolaba waa uun la gorgortamaa yacni political situationka madiini wuxuu ahaa politically meel la gorgortamayo ee aan cidi lahayn kelima xaasima wuxuu nebigu u soo diray markaasi saxaabadii halkaasi ay diintii ku faafiyeen madiine markaasi mar haddaanu jirin baawar midaysan oo xagga sare durbaa kaga garaacaya oo waxa kan tirtiraya mar haddaanu jirin waxay sababtay inay noqon karto meel islaamku inticaash ku helo uu faafi karo si fiican buu u faafo guri madiine ku yaalla ma jira baa la yidhahdaa ilaa iyo wuu galay nebigu calayhi salaatu wasalaam baycadii dambe markuu la galay wuxuu soo raaciyey
saxaabo quraanka iyo diinta iyo cilmiga iyo wuxuu dhan u dhigta dadka muslimiinta cusub ee islaamay Mus'ab ibn Umayr iyo saxaabigeeda leeyahay meesha yimid si nashiid bay u faafiyeen labadii qabiil labadii nin ka odayga ahaaba diintii soo galay Sa'd ibn Mu'adh Sa'd ibn Ubaada iyo Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhum ee Aws iyo Khasraj labadii nin hogaaminayay qiyaadadii markaa meeshaba gacanta lagu dhigay waxay noqotay islaamkii inuu faafo guri Madiina kamidi ma jirin baa la yiri ilaa islaamku uu degay nabigu alayhi salatu wasalaam markuu muddo joogay ee islaamkii uu faafay ee uu ogaaday meesha tan inaan sulto xooggan oo muslimiinta cadaystaa ka jirin ayuu wuxuu damcay inuu xoojiyo muslimiinta halka degan wuxuu ogolaaday markaas maka saxaabadiisii joogtay inuu yiraahdo xagga u hijrooda awal markii hore wuxuu u diray xabashada saxaabadii dambe looma dirin waxa loo diray maxay maka Madiina loo soo diray waliba Madiina waxa loo soo diray xataa ragii cadadka xoogga ku lahaa ee aan la taaban kareynin hijrooda la yiri Umar iyo Quraysh kumay dhacaynin ونين ده لقى بقى قبيل حرقان بوها مسيسة ماشى ضدك ضعفاء ده اللي تمي أما ضدك عم باور كحرقان هيسني حتى كوي وحسكرة بكرة أما عادات كايا أنا قريش اللي بتدي حرقان وجيسن كرينين وحيارنا وحنا بقولي هجرة ده وحيسقط تكتان محي مدينة لو سوى ده هجرة إسلام كيبا فافي وحي النقدين مكان مسلمين السلطة كلية ماشى ما باور كلية شوجا أوس يا خزرج بوي مدين مهاجرين ماشي soo galeen xoogii islaamka muuqday markay noqotay inaan sultada cidi kula loolami karin muslimiinta ayuu nabigu ka daba hijrooday dabeetana markuu magaalada soo galay masaajid buu binay qoladii hore masaajidda ma dhisanay waa weyn nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu magaalada soo galayba masaajid buu dhisay masaajidkana wuxuu tilmaamayaa waa golihii baarlamaanka meesha tan ka talin lahaa waa sultadii inay gacantiisa soo gashay nabiga kaleey salaatu wasalaam idan dawladnimadii Madiina gacantu ku dhigay nabigu markaas waxa bilaabantay markaa yahuudiina isku daydaydo laakiin waxay arkeen inaanay iyana mar haduu Aws iyo Khasraj ba midaysto gacanta ku dhigay inaan la loolami karin yahuudina waxay ogolaatay markaasi sultadan inay ka qayb qaadato nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu la galay markaasi watiqadii historiga ahayd ee taariikhda ku macruufka ahayd oo yahuudina inay ogashay dawladda islaamiga inay wax ka difaacdo magaalada Madiina cid allaaliye cidii ku soo duushay in loo midoobo oo la iska dhiciyo meesha tan inuu islaamka haysta sultadiisi idan عهد بو نبي قال